hore kuugu sheegnay barnaamijkan saddex su'aal oo 10 daqiiqo kadib aan ka jawaabi doono iyo hal su'aal idinka leedihiin insha Allah oo commentiga hoose ee videogan ama muuqaalkan uga soo jawaabi doontaan anaga oo sheegi doono toddobaadka xiga ama muuqaalka xiga guuleystaha barnaamijkan su'aasha waxa u dhacaysa sidan ama saddex su'aasha ugu horeysa ku soo dhawaada waxayna leedahay sidan dhagaha furaa sheeg lugta ama shayga kaliya ee aan dhaqaaqin marka gaarigu u leexdo dhanka bidix si fiican u dhageyso warka sheeg lugta ama shayga kaliya ee aan dhaqaaqin marka gaarigu u leexdo dhanka bidix waxaan filayaa inaad garateen hoosna aad kala socotiin 12 daqiiqo kadib jawaabta insha Allah 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 waxaan filayaa dad badan isku dayeen jawaabtu si fududahay lugta kaliya ee aan dhaqaaqin marka gaarigu u leexdo dhanka bidix waa lugta gadaal ku dhagan ama gadaal ku xiran ee loo yaqaan lugta isbeerka ah dhanka midig u leexdo dhanka bidix u leexdo hore u socdo gaariga markasta lugtaas ma dhaqaaqayso laakiin su'aasha qiyaano ku dhisneed waxaan ku yiri dhanka bidix in afarta lug ay socoto ama wareegayso aad ku mashquulshay su'aasha laakiin waa lugta isbeerka ah ee gadaal ku dhagan aad aad u mahadsantihiin su'aasha labaad dhagaha fur waxa u dhacaysa sida waxa lagu yiri saddex nin israacay waxay u socdeen meel fog maadaama meel fog u socdeen saddex nin waxay damceen in ay raacaan gaari saddexdooda waxay go'aan ku gaareen inay joojiyaan gaari soo socday ku soo wajahnaa nin wuxuu u taagay lugta midna cimaamadiisii midna wuxuu yiri jooji saddexdaas nin keeba gaariga joojiyay mar kale aan kugu celiyay su'aasha waxaan ku yiri saddex nin israacday waxa ay doonayaan inay meel fog aadaan waxa ay damceen inay gaari raacaan waxayna go'aan ku gaareen inay joojiyaan gaari ku soo wajahnaa oo dhankooda soo socday saddexda nin gaariga mid lugta u taagay mid cimaamada watay u taagay oo ku horgufay midna wuxuu yiri jooji saddexdaas nin keeba gaarigaas joojiyay aad aad ma santiin 12 daqiiqo kadib jawaabta 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 markale kulanto wanaagsan waxaan u maleynayaa in dad badan ay wali yaaban yihiin su'aashaas ay la yaaban yihiin laakiin dadka inta badan way ka jawaabaan su'aalaha u fudud gaarigaas waxaa joojiyay darawalka gaarigaas waday ee saddexda midna ma joojinin darawalka gaarigaas wadaa joojiyay aad aad u mahadsantihiin su'aasha saddexaad iyaduna waxay u dhici doontaa sida maadaama barnaamijkeenu yahay saddex isku day hal la ka jawaab su'aasha saddexaad waxay u dhacaysaa sida waxaan ku yiri ri ayaa waxaad ka soo kaxaysa meel baadiye ah inta wadada ku soo jirteen waxa lagu daay roob labadiinuba waa qoydeen markii aad keentay ridi ayaa waxa la arkay labadii gees ee rida oo midna qalalan yahay midna engegan yahay haddaba sidee ku dhacday markale aan ku celiyo waxaan ku yiri ri ayaa waxaad ka soo kaxaysa meel baadiye ah inta wadada ku soo jirteen ayaa waxa lagu daay roob labadiinuba waa qoydeen markii aad keentay ridi ayaa waxa la arkay labadii gees ee ridi oo midna qalalan yahay midna engegan yahay haddaba sidee ku dhacday waxaan filayaa inaad garateen 12 daqiiqo kadib jawaabta insha Allah 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 dabcan dad badan oo isku dayeen laakiin jawaabta aad u fududahay sida adinkoo warkiga ka dhamiseen labada eray ee kala ah qaleel iyo engeg waa isku macno waxaan ku yiri labadii gees ee rida oo xal arkay midna qalalan yahay midna engegan yahay waxa isma dhaamaan labaduba waa qaleel ama engeg oo isku mid ah waxaan filayaa inaad garateen markan waxaan gudgali doonaa su'aashii qiimaha badneed su'aashii kaalintiin aad ku qaadan lahaydeen maadaama barnaamijkeenu yahay saddex isku day halna ka jawaab halka aad ka jawaabi lahaydeen waxay u dhacaysaa sida maanta su'aashu fududahay qofkii af Soomaali yaqaan bas ka jawaabi kara waxay u dhacaysaa su'aasha sidan waxa laga rabaa inaad noo sheegtid waxa af Soomaali lagu yiraahdo ereyga wajiga caadiga ama face-ka caadiga bas oo taqaanid ereyga waji waa Carabi face waa English laakiin Soomaaliga saxda ee loo yaqaan waji
baa lagaa rabaa haddii aad Soomaali dhalada tahay. waxaan filayaa in aad uga soo jawaabi doontaan qaybta hoose ee commentiga. aad u mahadsantihiin sida quruxda qiimaha qadarinta iyo qaayaha badan oo la socotaan muuqaaladeena qiimaha badan. haddii uu yahay booqashada ugu horeysay ee channelka Ansel Media, fadlan subscribe saar, sidoo kale fura gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee soo gaara muuqaalkeena. tan intaan dib ugu kulmi doono barnaamijka lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaa nabadgelyo weliba. asalaamu calaykum waraxmatullahi